kusoo dhawaada waraysiga aan la yeeranayno abwaanada da'da yar ee Soomaaliyeed ayaan Axmed Caydiid oo ku magac dheer ayaan kaaba heeso farabasay sugaanteeda si fiican bay Soomaalidu uga dhageysan yihiin isla mar ahaantaana waxa inuu Ilaahay siiyey hibe u gaar ah oo markaas ay kusoo bandhigto waxa maskaxdeeda waxay iyo waxa waqtigu iyo duruufaha adduunku ay keenayaan hadday ahaan lahayd maasooyinka gaagaaban iyo hadday ahaan lahayd heesaha weliba jacaylka abwaanadan da'da yar ayaa waxay culisay ilaa haatan intaan ognahay 8 heesood midba midda kale ay ka culaysay tii ugu dambeysay waxaa qaadaysay fanaanada Soomaaliyeed Ogbaad Aragsan ayaa qaadaysay meesha heesaheeda xariir Axmed uu qaaday sidoo kale waxaa heesaheeda qaaday Jamaal Onkod baa ka mid ah Faisal Muniir baa ka mid ah iyo weliba Ustaad Iskalaaji haddaba abwaanadan da'da yar maxay ognahay ayada aan kusoo dhaweeyey marka hore aan la weydiiyo qofka ay tahay si aan ugu ogaano barnaamijyadan waxaan ugu talagalay bulshadu dadkooda haldoorka inay wax badan kaga bartaan oo ay ogaadaan dadka ay yihiin ayaan aad baan kusoo dhaweynayaa sharaf iyo karaameyno aad barnaamijkan hadda nagala qayb qaadanaysid soo dhawow walaalka Cabdixaafid aad baan ku salaamayaa oo mahadsantahay walaalo aad baan ugu dhawahay barnaamijka dhammaan daawadayaasha inta kugu xiran inta daawad doonta barnaamijkana si weyn baan u salaamayaa waa hagaag jira haddaan inta aanan sugaanta u gudbinin bal adiga kugu soo yara dhaweeyo ayaa dhalashada hirbaan ahay Afrikaanku haybsado Soomaali hodan oo la higsado ayaan ahay daroorba hadaaq iyo hadal lagu soo baray hoygii murtida iyo hargeysaan ku soo koray higladana ana dada waa gartay dabcan waxa muuqata durba in qalbigaaga wuxuu ku sugaantahay aad ku bilowday waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo sida sharafta leh aad nootay waxaa jira haddaan diida u yaro adigoo yaroo ardayad ah oo 13 sano jira ayaa alaystee aab geeriyooday fankii weli maadan kusoo biirinin ama waxaanad culisin maadan bilaabanin dhowr sano kadib arrintaas dabcan waxay kugu yeelatay saameyn yara gabar iyadoo yar aabaheed weyday bal waxaad ka xasuustay iyo saameyntay kugu yeelatay soo dhawow waa maasantahay walaalo dabcan saa sheegtay anigoo yar buu aabahay ilahay naxariistii jannaha ka waraabiye u geeriyooday markaas iskumaan arkahayn inaan wax samayn karo laakiin isla sanadayr kadib baan isku arkay inaan hal abuur leeyahay wax samayn karo anigoo ku jira dugsiga hoose dhexe fasalka 7 waa dareemi kartaa oo markaas raacdaan saaxiibo badan oo aabayaashood la ciyaarayo oo la farxayo oo arkayso in yani iyagu ay aaba leeyihiin adigoo yaqaansan qadarka ee inuu jiro haddana waxyaabo badan baa tabaysaa oo garabkiisa ka mid ah maanta waxa jirta aad bulshada ay ugu dhex faaftay oo ma aan aaba dhimashadiisa ka sameeyay oo kale oo marka ay noqonaysay sanad guuradii shanaad oo marka aabahay sii mootana ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo amiin maasadana marka wax ku cabirayo dareenkayga iyo waxa aan dareemayo markaas uu baa ku cabirayo waanigi lahaa aaba dhimashadaadii qalbigayga dhibic iyo soo dhaawac halis iyo dambiil iguma ay noqon galabtay ku dhaaftay dharcad lagu duubeen naxash lagu duldhigay dadkoo dhami daraada gudbintaada dhowreen dabadeed dhul hoose iyo qabri soo laguma dhigin dhimashadu xaq weeye gabalkii markuu dhacay aaba soo ma dhaxamoon inkastoo dhalaan iyo aan ahaa qof dhooreeya ha yeeshee ma dhaadin wixii dhacay dharaarta iyo dhaaxa dabadeed intaan dhig wadaagii aan nahay dad dhalasho ah sawbadiilahaydiyo may arag dhibtaan qabo waxba yaanan dheerayn dhiilada codkayga dhinacaadii aabboy dhabtiiguu bannaan yahay balse dhimantay eegoo kaamina dul sugayee ilaahay ku dhaafsiye dhamcadaasa ciiriyo dhibta taalla naarto jahanamana kaa dhowr amiin dharaaraha qiyaamaha kaa yeelgigiisoo dhulka kugu hadheeyo dhab u daashood ana samir ku dhaashaday waa gartay waxaa muuqata erayadaasu dabcan dareen qalbigaaga ku jira ka turjumayeen allah raxmaanka waxaan uga baryaynaa aabe in uu maaragtay jannadii firdowsa uu ka waraabiyo kitaabkiisana gacanta uu midigta ka siiyo
ayaan insha allahu tacaala alla uga barinaa sidoo kale intaan sugaanta u imaanin waxaa iminka jirta oo maskaxdaada ka guuxaya ama waxyaalaha kuugu weyn ee noloshaada ugu muhiim hooyo ayaa iyada laftigeedu kaa xanuunsan bal xanuunkeeda nooga waran iyo culaysku adiga kugu haya waa dareemi kartaa runtii qof yani laba waalid lahaayo hal ka geeriyooday midkii kalena uu xanuunsanaya dabcan saad sheegtay dee qof kasta oo maanta dunida ku nool ma jiro qof aan hooyo helin iska daaya kay hooyadii maalinka uu ifka yimi ay dhimatay yani wuu dareemayaa la-aanteed buu dareemaya waxa ugu yar dareemayaa waa inay tahay la-aanteed qof nool oo ay soo barbaarisay oo ay nolosheedii iyo qayb weyn ka qaadatayna xanuunkay leedahay dabcan wuu dareemi karaa oo dhammaanteen waynu wada dareemi karnaa dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dhammaan hooyooyinka dunida inta xanuunsanaysa oo dhan Ilaahay inuu caafiyo baan Ilaahay u weydiinayaa dareenada inta badan aan wax ka curiyaa waxa weeyaan wax anaga taabta waa waxaan arko ama qof saaxiibkay ah ku dhacdo ama aniga hay ugu dhacdo dabcan intaas ka curiyaa marka xaaladaas ay taabato waa inay buugan qalin soo qaataa ama waxa iigu dhow markaas aan wax ku qori karo waa inaan wax ku qoraa maasoo waxaa jirta saasoo kale ah hooyo xanuunkeedii ka curiyey oo yani bilaabmaysa sidaatan waxay odhanaysaa cudurkiiyo xanuunkaagu noloshuu cusleeyaaye asturay casiiskeenu caafimaadku sii hooyo rabbigaa carshiga uuma soo celi awoodaada farxad aan cid kale haysan ku caweey intaad joogto cisho kaama maarmaayo heli maayo caynkaaga carradana intaad nooshay wiilkaagu way ciidan caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga ciil iyo nur weeyaane cimrigaagu raagooyo caan weeye magacaagu cirka weeye sharaftaadu cajiib weeye weedhaadu cashar weeye noloshaadu muddadan calooshaada ku cayaarayeen jiifay ilaa caawa korintayda adaa ciirsa qura ii ah cishadan agoomoobay cudud aabanimo waayey waa taa darkii ciishka harcad suuqa darabkayga u fadhiday cadceed hooyo adigoon mar cabanaynin caku daalay kaa yeedhin caawiye wanaagaaga boqol jeer cisayntaada caqliga iyo dulqaadkaaga suugaan cabiri mayso qof hadduu ku yara caayo anigaa caluulyowga la colooga oo gooya ka ilmeeya caradaada rabbi baan cuskanayaaye ifka kuguma caarcaarsho cadaab aakhiro kuma geeyo jannadaa carfiga dhibta xuralcayn ka noqo hooyo waa gartay dabcan hooyo qof lamida ma jirto waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad hooyo magaceeda waxaa la yidhahdaa Zaynab Aadan Ismaaciil saan jeclahay alla waxaan inuu dhibaatada ka dulqaado caafimaad ballaaran uu siiyo markaad ka hadlaysay hooyo ii muuqanaysay iyo aabbaba inaadan xataa waxba meel ka akrinaynin wax qalbigaaga ku jira ay yihiin oo aad ka akrinaysay waxayna tusaysaa yani arrintaas culayska iyo miisaanka ay kugu leeyihiin aabbo haddii aan halkaas waalidka uga soo tagno waxaan intaanan kasoo tegin hooyo waxaan ogahay sanadkan 2021ka waxyaalaha kugu waaweyn aad doonaysa inayd suurto galaan haddii ilaha yidhaahdo inaad hooyo caafimaadkeeda ku dadaashid oo dalka dibaddiisa u qaadid arrintan xagee kuu maraysa meel fiican walaalo insha allahu tacaala waan rajaynayaa maalmaha soo socda in caafimaadkeeda wax badan iska bedeli doonaan haddii ilaahay suuro geliyo insha allah sida anigu aan rajaynayo waana ku tala jeedaa hawsha waa gartay waxaa jira oo iyada laftigeedu muhiimad leh dadka badankooda inaysan ogeyn laga yaabaa inaad adigu tahay curadii reerka oo aad maaragtay culays gaara markaas ay arrinta ku saarayso soo dhowo aad iyo aad waa run curad baan ahay waana ku faraxsanahay inaan curadahay yani waxaan odhan karaa waa nasiib qof nasiib loo baa noqda inta badan curad marka aada waa gartay wagaag haddii aanu iminka dib u noqono markaad 17 sano jirtay ayaad waxaad ogaatay inaad maaragtay aad hal abuur leedahay oo aad wax oran kartid bal xusuusta dib noogu yara celi
anoo yar baa isku arkay sidaan hore kugu sheegay inaan wax samayn karo laakiin muddo badan kadib marka wax sameeyay wax badan baa ogaaday in yani aan anigu waxaan ama meel ka hidaystay ama wax ilaahay hibo oo ilaahay ugu galaaday inay tahay waxa xasuustaa anigoo yar oo dugsiga hoose dhexe ku jira fasalka 8aad oo kale waxaan ahaan jiray 7C marka maalinka safka u leenahay badan waxa dhici jirtay in galaasada sidii oo dhan gaar isku amaanaan biduna gaar isku amaanaan eeduna gaar isku amaanaan marka waxaan codsan jiray inta badan in fasalkan anigu u soo sameeyo sida aan amaan soo sameeyo marka saahan fasalkan si aan amaanayo wax ku xusin jiray 8C 6C 5C 4C 3C ilaa 1C baan wada jiray sidii baan kaga baxay anigoo wuxuu curcuriya dugsi saraan galay dugsiga sare Maxamed Axmed Cali anigoo form 2 markaas waxaan xasuustaa maalin baa waxaan ka qayb galay journal inta badan soo saaran ardayda artiska ee dugsiga Maxamed Axmed Cali dhigata journalkii markaa waxaan ka qayb galay sheeko iyo in yar oo maasa ah oo wada socda wiil markaa dugsiga dhigtaba isoo raadiyay waxaan xasuustaa marka ereyda ku soo jiray waxa kamid ahaa sheekada aan raaciyay rag digasho badana duulkan dhib badana dadaalkaaga nacaba marka waxa ka cabirayay in ay rag jecel yihiin in haweenku adeegaan oo kaliya ta oo yani ay ku daneystaan laakiin qofkan hadafkiisa aanay yani aanay iibin marka ereyda xasameeyay maalin wiil aan wax isku ahayn baa seero kaftan wuxuu yiri buugaag baa maalin kasta wada tahay maxaad isaga guursan weeday marka sheekadaas iyo umeegaas wada socdaan ka curiyay journalka ka qayb galay wiil aan filay magaciisa Yusuf raadahdo baa iibi journalka markuu akhriyay ereyda ku jiray kadibna wuxuu ereyda maada sameeyay haabaan ku wuxuu ma hidda u leedahay mise yani xageed ka keentay waxaan ku markaa ma garanayo wala yaabay sababtoo abahay anoo yar buu dhintay wiiliga weyn ma jiro adeeraday ima dhawaa yani cid wixii sheegtay ugu tiraado waxaan ama hiba u leedahay ama yani la sheekaysan kara ma isan jirin su'aasha markaa waxay u sameysay oo ay dib ugu celisay inaan reerkayga dhex galo inaan reerabtiga iyo dooyinkay baan raahdo yani ma jireen cid inaga inaga mid oo wax tirin jirtay ama heesi jirtay ama gabi jirtay waxa soo ogaaday awowgay Caydid sidoo kale awowgay Macaash inuu midna heesa ahaa midna gabi ahaa waxa soo ogaado kale sidii ayay hooyadeed inay heesa ahayd arosida ka heesi jirtay yani xariista jamaacka waraabiyadana marka su'aashaas maalintii la weydiiyay baa aan is ogaaday in yani ay wax ugu jiraan oo wax samayn karo laakiin ilaa ma inta sano ka horeysa ee wax samayn jiray wuxuu ma iska samayn jiray waa iska dhigi jiray waxa waxay ahaan jireen inta buugaagta aan ku qoro markaa isaga tagi jiray maalinka kadib waxa aan dadaal ku sameeyay inaan waxaygi kaydiyo bal ama aan soo bandhigo tiiba markaa suura gelisay in kasii wado waa gartay waxana qaadayo iskuulkii iyo hawlihii wali waa wadatay waxbarashadii heesaha waxaad ogaatay inaad wax curin kartid waxaad ogaatay reerku inay asal ahaan u leeyihiin maxaa la yidhahdaa hibo iyo haybad ilaahay u siiyey inay gabiyi jireen ama sugaanta ay maaragtay qayb lixaad ka soo qaateen waxaan rabay inaan ku weydiiyo inta badan waxaa dhacda intaana fanaaniintii heesaha samaysay aan u gelin waxaa dhacda waxaa la yidhahdaa copyrightka xuquuqda qoraalka qof baa la sheekaysanaysaa mararka qaarkood fikir baad kala sheekaysanaysaa hadduu ahaan lahaa hadda idinka oo kale dadkiina wax curiyo oo kale hadday ahaan lahayd qolyaheena warbaahinta ku jira oo kale dadka buwaagta qoro oo kale waxaa dhacda mararka qaarkood fikir baad ku kalsoon tahay la wadaagaysaa qofkaasu fikirkii ayuu wuxuu ka qaadanayaa humaag haddana wixii wax u eg buu samaynayaa isagoo marnaba aan siinaynin wax credit ah ama xuquuqa qofkii iyo fikirka qofkii lahaa mararka qaarkoodna kulli intay qaataan wayba jeebka gashtaan waxyaalahaas ma ku soo mareen adiga dabca walaalo way iska jiraan oo hadda dadkeena waxa aad ugu soo badanaya in qofba ama sawir uu sawiray la iska qaato oo wax u qalmuusin fikrad ganacsi oo kale in inta badan kambaniyada qaar marka loola tago qofkii oo maalgelin ka raba inay qaataan kadibna isagina ay diraan oo aanay iska daawaye aanay inay maalgeliyaan fikirkiisa xitaa ku dhacaan baa dhacda hal abuurka sidoo kale way dhacdaa aniga ku hadlaya
dhowr jeer bay ugu dhacday in ama heesa aan soo saaray ama ereyo kale ay dad dhahdaan yani ereyadan anigaa ahaayo kale waana wax inta badan hadda kusoo badanaya bulshadeena qof kastoo maanta ay daawanayana aan ku xuuha ka dhiirigelinayo oo aan leeyahay yani wax aanad adigu samaynin sidee bay suuragal u tahay inaad sheegato mararka qaar qof markuu ila yimaado dhahdo ereyada anaa sameeyey waxaan ku dhahdaa marka aniga inta badan waxay aniga saacidaa waxa weeye ereyadu markay igu soo dhacaan markaba waa in facebooka soo dhigo kaliya waxaan nafis ka dayaa oo aan ku nafisaa in dad ay faalla ka soo bixiyeen ee filcilinta ka imanaysa marka marxaladda ugu taagan aan wax ka sameeyo marka ereyadii facebook iskaga jiraan waxa laga yaabaa mar dambe inaan ama olimi ku xidho ama ay iskaga jiraan qofka marka sheegta waxaa idhaahdaa had maad samaysay kadibna wuxuu sheegtaa waqtiga anigu sameeyey waqti ka dambeeyey inuu isaguna sameeyey taasaan markaa inta badan aan ku kala baxnaayo dhowr qof aan ku kala baxnay waxaa jirta oo kale heesta hadda u dambeysay oo badaragsan qaado in lagu yiri humaaga waxay isaga mid yihiin wiil bay isaga mid yihiin hees isaguna hore u dhiibay dabcan markaan dib u raacay waxaan ogaadayba inanka 2018 aan ereyadayda u diray oo ku iri waa inaad fanaanka igu dhiibtaan kadibna ereyadaydiiba humaa kala baxay tiyo kale uu sameeyay u dhiibay markaa wax dhacay weeyaan hadda 20 heesta soo baxday marka waxyaabaha soo dhan baa iska jira laakiin wax wanaagsan maaha يعني دنيا فربنا هذا ويعادي سنة يعني ووحي لهاي بحياة الحمد لله هدي لهاي كسيي وأنا موضوع عقف كان موضوع كدوان أضوء أسكعتا ما هكذا تمام هدي أنا وحكسم يو يعني هديت صلاحا نرشي هذا ويبلع أنت وحلاقي أبا إن أبوه كذا وحكسم يو أبيه وحكسم يكرت لكن واحد ترى موضوعية كلا أفربنا وكوب بناني وحكسم يسو أنت بدنا hal abuurkii hal meel bay isugu tagaan ama jacayl inta badan jacayl baa laga wada maasooda ama laga wada qabyaa laga wada heesaa intaba laakiin waxa jira waxyaabo badan oo kale oo qarsoon u baahan in wax laga tiriyo waa gartay wax tiriskaas haddii aanu ka wada hadalno oo hore u sii socono waxaa jirta 4 hees oo aad samaysay inaad u dhiibtay fanaan xariir axmed aad u dhiibtay oo heesahaaga oo 8 isagu uu qaatay ninka odayga ah oo soo kama sadbursanin fanaanintii kala leedahay ma santa walaalo xariir axmed halkan aad baan uga salaamayaa waa walaal qaaliya oo badan sid wanaagsan yani anaga markaas baranay ilaa hadda walaaltinimo iyo wanaagan isku baranay iyo ixtiraamkii baa sidii nooga dhaxeeya inta badan fanaaniintu waxa iska dhacda fanaaniinta qaar baa intuu dhibaato jirta waxa tahay fanaanku wax kaama qaadanayo ilama iyo uu arko ama uu inaad heesta ka hor samaysay oo kale waxa laga yaabaa marka dhowr heesood ku qarxaan inuu ku soo raadiyaan iyagoo ku dhahdo waxa rabnaa inaad hees nasiiso laakiin marka hore uu qofku cusub yahay intooda badan 80% dhalinyarta hal abuur kale ma dhiirigeliyaan حرير أنا وهستي ده الرئيسي سجع قاضي ما شاء الله هيس وحنا نقطي يعني أي تتفرق بدنا دقيقتين و6 مليون كده مانتا هستاس مركز صواب حدي فنانين بدنا كانوا سوسو دواني وعسبراني أو عن وذا شقين أنا نحمرتي لكن حرير وحنا نقضي قف عن مركز الرئيسي هستي ده وقاعدين هنا عم وحشروا ده يقدر قلنا هي سهرة اللي قاعدين أما هي سهرة اللي كله isagana runtu deeriyo qanciyayun ay ahaayeen marka xariir heesta koowaad markay ay noo soo baxday si fiican magaalada u gashay heesa kalena waan ka wada shaqeynaa sidii aan soo saari lahayn qaar badan oo kalena waan ka sii wada shaqeyn doonaa waase qof ma sha Allah aan success aqoonin oo maanta tukula heesta tumaya uu soo saaraya halkaas waxay marayaan de mar walba iyo halka wuxuu marayaan kula socodsiinaya sida kale shakhsiyadda waxa qofka waxa wada shaqeyn kartaa ama wax wada wadaagi kartaa marka uu shakhsiyadiisu ay yani dhuuxa hoose ay ka macaan tahay oo ay ka fiican tahay marka dadna waa dad shakhsiyad fiiga leh oo afka ku macaaneynaya ka oranaya bisabka ereyada kale lama heli karo qof sanaba tahay hore u soco laakiin maalintaas qofka kugu dambaysa qofna waa qof dun wanaagsan leh oo yani ilaahay u dhaliyay oo aan hayn wax iska keenkeen ah
oo yacni aan weligeed isbedelahayn markaa shakhsiyad aan weligeed isbedelayn baa walaalkay ku jirta waxaan leeyahay waxaad leedahay hibo codeed oo cajiib badan waan ku salaamayaa insha allah waxaana ku leeyahay halkaa dadaalka ka sii wada ما شاء الله waxaa jirta ana laftigeyga inaan xiriir dhowaan waraysi ka qaaday intaan waraysiga ka qaadanna waxyaalo badan baan soo baaro isaga ku saabsan xaqiiqatan nin khiyaar ah inuu yahay ay dadkoo dhan isku raaceen sida kuwa kaleba ay khiyaar u yihiin laakiin qof kasta oo aan la hadlo dhaho war ninkaan iga warrama qof kasta wuxuu yidhi ninka odaga waa nin goba oo nin soomaaliyeed oo inkastuu lalan yar yahay oday soomaaliyeed aan dhihi karnaa hagaag waxaad kaloo oo waxaa jirta waxaa kale oo aan ognahay kale jamaal onkod inaad laftigiisa hees laftigiisa uu kaa qaaday ood u dhiibtay heestaasu maxay ka turjumaysay ujeedadeesu maxay ahayd walaalka jamaal waa salaamayaa hees baa u dhiibay sanadkii 2019 heestaas waa hees waxay ahayd aan ugu talagalay oo aan u sameeyey magaalada muqdisho hees waxay ahayd markaas yani ka hadlayso dadka meesha jooga iyo magaalada iyo jawigeeda iyo waxaas oo dhan ka hadlaysa marka heestaas uu walaalkay qaaday ereyadeedina waxaa ka mid ahaa gaygan cidna soocin golihiisa u dhoweynta qola gaar u lahaanin adigaa gobta soore cirka geeda xariirta إن شاء الله وحوي وحقيقة سوماليدو كوا مقدشة جوا كلية ما هني مركز حتى أكيد كوا كلا مالك الصوص سومالي جوا ضد كأني مرتسوران جعل لكن حقيقة مقالة سدا عاود عد كورة هلا يسي عد كارها هلا يسمى جرتو ما كان إن شاء الله تعالى أساسي يستكر في على نيهم بنجعلها وهجاك فيصل منير إيجو الرأسك فيصل منير هاس حبس على شغلة لا بقاعدة وعندي بيت مركا هاستاس وحي كان لي سياس على بيحد ويعني مركز مرحلة شعيلة أو كريتيجتان كصحب سنة مركا حبس على شغلة يعني كهيا حلوة وحكينتي ساعة وكمل هاي إريدي وأنا هاس أنا وسكر وجعل هاي أنا وأسلام يا فيصل منير dadka qaar baa waxay leeyihiin heestaasu adiga wax kaa dhex guuxayay bay ka turjumaysay dad baa saas aaminsan oo qoraallo iisoo qoray arrintaa maxaa ka jira mise waa warka suuqa arrintaas waa warka suuqa agartay sidoo kale waxaan ognahay iskalaaji laftigiisa anagoo kulligood halkan ka wada salaamayna faysal munir iyo jamaal onkod iyo ogbaadna usoo soconaa waxaa jirta laftigiisa inaad hees u dhiibtay dhowaan saasaan u fogeyn uu qaaday maraan ka wareysanayena uu soo qaaday heestaasu maxaad ka xasuusataa sayse ku timid iyadu haddaan dhaanteynayaa waa heesta uu hadda iskalaaji qaaday heesihii ugu dambeeyey ka mid ah oo iskalaaji soo saaray waxa ay ka hadlaysaa uun marxalad laba qof oo kala tegay oo isku soo laabtay kadibna markaas ka sheekeynaya yani farxadii iyo yani markii hore dee dhibaatada jirtay iyo marka dambe siday u kala duwan yihiin labada xaaladood waa tabanaysa dadkii dhaliili jiray haddaan iska dhicinayaa dhexdeena kuwii ku jira dhooshaan dhaantaynaya muddaan dhalandhoolaya haddaan dhulka qabanaya dhaxaan rajanaa wile haddaan dhaantaynaya marka labada marxaladood bay ka hadlaysaa ustaas kalaajina aad salaamayaa hees kale oo aad u qiimo badan oo nolosha ka hadlaysana uu soo wada insha Allah tacaala san ka rajaynayno waa qof maasha Allah intii aan aqaanay aad u qiimo badan oo wanaagsan insha Allah waxaa jirta kaasna waa ugu dib dhigay oo maaragtay arrintan xaraga kusoo gabo iyo heesaha waxaa jirta hees dhowaan ay qaaday fanaanada Ubad Aragsan dadkii waa la dhaceen heestii wax ceeba iyo wax xumaan oo kasoo noqday ma lahan laakiin waxaa jirtay eray dadku ay isku hayeen oo siyaabo kala duwan loo fasiray oo naxwaha Soomaaliga inuusan fadhiinin la sheegay marka waxaan rabaa bal inaan adiga fursad kuu siiyo inaad adigu maadaama heesta culusay aad noo sheegtid meeshay wax ka khaldan yihiin iyo inaad saas ugu tala gashay
dadka falanqaynta iyo falcelinta ka bixiya heestan dad aad u fara badan weeye 2 qof oo anigu aan arkay haddaan kasoo qaato waxaa kamid ah King CK oo fanaan ah youtuberna ah iyo weliba aan hal abuur cawil bile oo laftigiisa youtuber ah hal abuurna ah ayaa kamid ahaa dadkii yiri say heestan oo erayadan maxay ka dhigan yihiin marka bal fadlan soo dhawow adaa heesta sameeyey noogaga dhac adoo maxad waa maasan tahay heesta badarsan qaado dhexdeena jacaylkayaal waa hees dhawaan soo baxday saa sheegtana dad badan ay daawadeen heestaas waa hees yani ereyada inta sameeyey ereyada aan ugu jeclaa bay ka mid ahaayeen ilaa imikana ka mid yihiin oo dee waxaan kuli muusig la saaro laxan la saaro masha allah cod qurux badana lagu qaaday marka dadku inta badan waxay isweydiinayaan asaan social media kaarkeeda dhammaanteed hadhiman geerida horteed waxaan filayaa baa kaga yara leexsameeya hadhiman geerida horteed weeyaan horta inta badan dadku meelska ay wareejinayaan markaa sababtaas weeyaan sababta ay dadku inta badan ay u fahmi waayeen inkastoo ay jiraan dad badan oo si wanaagsan u fasirtay hadhiman geerida horteed oo yidhi qofku isagoo run u dhimanin buu qofka yani ay kala tegi karaa marka waxa laga yaabaa bidhaha qofka sameeyay inuu uga jeeday yani yana kala dhimanin inta geerida ka horeysa oo dad badan baa sida wanaagsan oo soo fikir cusub keenay oo sida wanaagsan u turjuntay laakiin sida aan anigu u sameeyay ee ahayd hadhiman geerida hortay waxaan uga jeeday yani waa duco hayga dhimanin yani aniga hortay hadhimanin marka saasay tahay waa يعني sida hadda hadalka ka muuqata nuxurka heesta marka la dhuuxana laga dareemayo waxa weeye 2 qof oo isjecel marka intaan anigu tegi lahaa oo ka hor iman lahaa adigu ay iga hortagi lahaa anigu aan ka hortago kala weeye ujeedadu marka waxay ku tusaysaa jacayl meesha ugu sarreysa ayay ku tusaysaa ujeedadana saas tahay waan fahmay dabcan erayadu way isku dhow yihiin baad aragsan kuma eedaynayno carabkuna qofka uu kaga dhacaa wixiina waa la duuba waa la soo daayey marka waa salaameynaa waa sharfaynaa intaas waa garanay qof aad u wanaagsan maasha allah allah karaamay guulba u rajeynayna waxaga haddii intaas oo hees ah oo jacayla aad isdaba dhigtay adigu goormaad hees jacayla iyo aroos iyo hawl aad tuhul u qalab qaadanaysaa maadaama habeenii maalin aan isjeclaano oo la isla jooga aad nagu guwaabinaysid soo dhowo maasantahay su'aal fiican hees aroosa iyo goorma loo qalab qoranayaa baad leedahay arooskii loo qalab qoranayaa maadaama jacaylkii in badan laga maasooday ama laga heesay jacaylku waa wax aad u qurux badan masha allah oo aad u fiican yani markastana jacaylka ama waxa ku wanaajiya ama ku xumeeyo qofka aad la wadaagayso jacaylka inta badan dadku waxay eedeeyaan jacaylka waxay yiraahdaan jacaylku waa wax jacaylku waxa maaha qofku ka kala ama xumeeya ama ku xumeeya ama ku wanaajiya marka tan kale iyadana ah arrimaha arooska iyo waa wax xagga rabbi ka qoran oo waa calaf waa wax xilli aynan garanahayn imaan kara aad وأسجن إما كان قاضي مركو عندما إنه حتى وتدرس كذا سفر بحدة أنا الله أعلم حتى أحلى سعداني كرماها أحلى سعداني كرماها كل يوحي نول الدنيا ده ولا أركض دورة سيدنا قطوة فرحتي حنبليا كهود كوسو مرينا دي لهي أديكو هويا أو مروة أو هسي جعيل كانت ترني جعيل كيلا لنول إلهي حكم أنا رجل بريت هدي لهذا وقرتي وحكله وجرا وأيضا رفتقي مهمة له أن جعلها إن كهذا النوع سيكوبان أدرد الملكتين أرنتي سلسلة دي آيفون مركز كهالليسين أذوق قرمات قاست إن تسوق الشيء أو الاستراء لها مالات كنقطة ملحن أردت وأنا كجوابتي أردت السلسلة horta anaa bilaabay laakiin aniga maalinka bilaabay igama yahayn silsilad noqonaysay waxay ahaayeen un erayo iska maad oo aan baraha bulshada ku baahiyay maalmaha waxaa cusbaa telefonka iPhone 11 kadibna soo dhigay sawirkiisii iyo erayo yar oo kamid ahaa waliba heesta xariiqa baan ku soo dul qoray
moobilka la wada qaatay marna iibsan kari waaye ducadii adkaar meesay bal si aan helo maalin marka wiilka silsilada la dhex maraysa oo isagana hal abuur ah waa isagana si yani أنا وجهي يعني سيسان نقوليسا وفالهان ugu bixiyay hadii moobilka fiican aan maxay doonto aniga markuu keenay oo meherba ku siinay marka hore barxaaskii inuu qamriyo oore markay baasho halka mareysay baaba ishayn kari waayay kadibna waxaan soo wareejiyay aduu 3-4 jeer baan comment gridisna galay kadibna wax isku rogeen in caadi loo soo post gareeyo saasay markaa ku bilaabantay labadeedaba ay naga ahayd yani wax iska maadmaad ah laakiin markii dambe ay noqotay wax yani baaha oo BBC laga sii daayo oo dadka oo dhan la dhacaan qaataan marka saasay ku bilaabantay waa gartay waxa kale jiro iyada laftigeedu ay laga yaabo dad fara badan inaysan ka ogeyn in aad muddo 2 jeer quraanka dhamaysay oo aad shiikhadii aad tahay soo dhow ma santaa sheekh ma hakaliya qof يعني قرآن كبرتو دمية دمانتي قف قدوش أنت سوقت تقضوا وحي دينتي إنه يعني أيسن وقلنا وكفوا قاعدين يعني قف كستوى شيخ ما بعرفنا أرتو أنا لأن حرستي كنا كورابية أبهاي أبو قيمة بدن بو هايو دي سكول كإلا يقدر إلا ما قرآن كلا لما تشير مركا قرآن كدمية أما صدحات كي وضو بعضك وكوكل على أبهاي إن ليجيو iskuul lagu daro waliba iskuulka lagu daro maxad kala raahdo carabiga ku baxa marka waa dhameeyay nasiib darase quraanka markii aan weynaaday dib waan akhriyaa dabcan laakiin sidii marka aan u xiftigii waxaad moodaa inuu iga kala yaacay sanadihii ugu dambeeyayna waxaad moodaa in aan xoogga saarayay si aan xitaa tafsiirkiisa u barto oo yani markastoo tafsiirkiisa quraanka aad barato yani uu ka dhadhan macaan yahay markastoo ama xifdi ama qaab kale aad u dhameystirato marka taaliftirkeeda iyadana waa waxaan ku dadaalayo marka dhamaanteena sheekheeynahay insha Allah waxa jira gabagabadii aan dabcan joognaa waqtigan eryanaya adna hawlo badan baa ka dhaca waxa jira hadda waxa la joogaa 2021 baa la joogaa waa maxay waxaad is leedahay dhowrka sano soo socda haddii ilaahay yiraahdo hooyana ay caafimaado qaboo diiradda saar aad is leedahay waa su'aal wanaagsan dawaanu galnayba 2021 hadda ayaan kaga jirnaa ilaahay sidii sanadkii hore naguma cakaro ay naga hayo shaqadiisa khayrkiisana ilaahay nagu waafajiyo خير بينك رجينا يا برادة يقول بينك رجينا كل واحد من أحسن لوجه حسوس وحياة بدنا وهالقان إنه قدنا رجال وين بنك القبا وتوحيبها أقول مهم سن يعني يقول شيء إذا أردن وحكسوا ما كسله وسمي كرتها هرتاجن وحوي يعني إنا هو عارف ما ذي شو دي هو اللي عارف ما ذي شو وأنا أقول إنا أنتس أو جولود أو ما أنتس أو وحوي يقول لك حياة إنه يهرجلي كرام marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee hooyo caafimaadda waxyaabaha labaad ee aan aad ugu tala jiro waxa kamid ah inaan ka baxbar inaan qof shaqaale u noqdo qof shaqeeya laakiin aan anigu noqdo qof iska u taagan oo noloshiisa dabari kara ama ganacsi ha ku dabaro ama waxyaabo kale ha ku dabaro inuu aan noqon karo qof yani isagu gaar u taagan oo yani aan cidna ku taagan marka taas gartay insha Allah waxaan mar kale alla ka codsanay dhammaan ummadda Soomaaliyeed daawanaysa muuqaalkanba inay hooyo sayna u soo duceeyaan inuu Ilaahay caafimaad siiyo waa waalidkeen kulliyan hooyo noo wada tahay inuu Rabbi caafimaad siiyo ka codsanayna sujuud ugu soo duceysaan insha Allah waa gartay ganacsigaas ma wax hadda ku qorshaysan baa jira oo aad is leedahay haday hooyo barita caafimaad ku dhaqaaqmisa waa guux ka guuxaya haddaan si kale kugu dhigo ganacsi noocay oo kale noqon karaa islaada وما سمت هاي وواح يعني عن كوب ذكره لكن كريه تمرك هذا إيه عافمادك كريه تبلعب كره تدوم كل حتى كان أحسن أنا ولا سكرنا يا يو يعني وحن بما هو وحن أحسن وبرشلة مفعول عشان تبغى هرقل كره راحي أقرتي gabagabadii iyo gunaanadkii maxaad Soomaaliyeed suugaantaada ku xiran
faraha badan meel walba joogta maxaad ku oran lahayd ka abwaan ahaan oo dardaarana laakiin dardaarankaa ka hor waxaan jeclaa inaan kasoo hormarisid abwaano fara badan oo soomaaliyeed baa jira allah caafimaad siiyey markaad hadda abwaan soomaaliyeed maqashid waxaa jira waxaa la yidhahdaa undisputed champion allah caafimaad siiye maxamed ibraahim warsame markiiba kugu soo dhacaya sugaantaadan haddaad sii wadid iyo hal abuurkaagaan ilaahay haybadda iyo hibada kuu siiyey xagaad jecesha inaad ka gaadhid waa maxayse dardaarankaaga adaan ku siinaya sugaanta walaalo waxaan rajeynaya waa wax horta ilaahay bixiyo alxamdulilah maaha wax la barto oo yani shahaadooyinto laga qaato bardhamaad leh barbilowna maaha marka waa rajeynayaa meel fiican ina maanta heerka ka taaganayd waxaan ogahay maanta heerkan ka taaganahay inuusan ahayn heer aniga aan ku qanacsano isla halkii u sareysaa joogtaa laakiin aan meel kasii fiican oo inta kasii sareysa aan rajeynayo rajeyntaas aan rajeynayana maaha inaan heese badan dhigo oo ay dad badan heesaha dhegeystaan waa inaan qaabab kale iyo aan u adeegsan karo oo qaabab kale oo ay dadkan aan uga faa'iideyn karo inay jiri karaan maanta waxaa laga yaabaa heesta muusiga la saaro kaliya in dhalinyarta iyo inta muusiga jecel